magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa ku yaala isbitaal lagu xanaaneeyo dadka maskaxda ka buka. Isbitaalkani oo loo yaqaan Mandhaye TV-ga SBS ayaa u kuurgalay sidii ku soo gudbin lahaa xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin dadka dhimirka qaba ee ku jira isbitaalka Mandhaye gudaha magaalada Burco. Haddaba isbitaalka Mandhaye ayaa ah isbitaalka kaliya ee ku yaala gudaha magaalada Burco ee lagu xanaaneeyo dadka qaba dhimirka. Halkaasi waxaan kula kulanay agaasimaha isbitaalka Mandhaye ahna dhakhtarka isbitaalka Cabdi Xasan oo nooga warbixiyay waqtiyadii kala duwan ee uu soo maray isbitaalkani. Sidoo kalena waxa uu nooga warbixiyay xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin dadka qaba dhimirka. Isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri sida tan: inta ka bacdi halkan waxa weeyaan Mandhaye Medical Health Center waxa weeyaan isbitaal ka shaqeeya dadka dhimirka wax ka qaba. waxa la aasaasay ugu horeystiisii 2008 markaas oo lagu aasaasay inuu ahaa daycare clinic oo qayb yar oo ah dadka laga siiyo dawooyinka. markay gaadhay 2011 ayaa waxa lagu daray qaybta inpatient iyo outpatient ilaa iyo xilligan oo shaqeynayay. waxay ka kooban tahay qayb bukaan socda oo halkan aanu dadka ku qaabilo aanu sameeyno dawooyinka iyo waxa aanu siino. qaybna waxa weeyaan qaybta dadka culus ee marka aad ku xanuunsanaya inaanu dhigno qaybtan gudaha. marka waxa la sameeyaa markaan qaybta dhigayno waana waxaan sameeynaa dadkii family-gina ay la joogaan oo ay meesha la hayaan si family-gina aan ugu barno sida marka dambe uu naga baxo ay ula qabsanayaan. Mandhaye waxa gacanta ku haya waxa weeyaan qayb kamid ah isbitaalka weyn ee Burco waa qayb kamid ah uu ka soo hoos taga laakiin sidiisa kale iyo maamulkiisa wixiisa ugu madax bannaan yahay. dabcan wasaaradda caafimaadka ee Somaliland waxa weeyaan isbitaal kamid ah. waxa kale oo jirta inay dadweynaha ama hay ahaadaan gudaha ama ha ahaadaan dibadda dadkeena ku maqan dibadda way caawiyaan oo waxbay u keenaan sida cuntooyinka dhaqaalaha xilliyada rabanaanta oo kale dadka isla dadka gudahana way caawiyaan. markaas dabcan waxaan oran karnaa waxa weeyaan waa meel la wada leeyahay oo la wada ilaashanayo oo hadday ahaato bulshadii hadday ahaato dowladdiiba saasaan gacanta ugu haynaa. adigu almuhiim waxa weeyaan waa intaas sawirkiisa guud waa saas. sidoo kale maraan wax ka weydiinay carqaladaha ugu badan ee ka hor yimaada ayaa waxa uu noogu jawaabay sida tan: kulli dabcan maadaama aanay hay'ad caalamiya aanay gacanta ku haynin oo dawooyinka noo keenin dawooyinkuna ay yihiin dadweynaanu ama dadkaas lacagta ay noo keenayaan aanu ku iibino ama wax yaro lacagta ay wasaaraddu nasiiso lagu soo iibiyo. kulli marmarba waxa dhacday inay dawooyinku kala go'aan laakiin taasna insha Allah kulli dawlad cusub ay noo dhalatay oo sanad cusub ay wax laga yaabaa in insha Allah ka baxnayo marka. ugu dambeyntii waxa uu baaq u diray wasiirka cusub ee caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Xasan waxaana kamid ah hadaladiisii wasiirka cusub ee caafimaadka kulli waxa weeyaan in halkan degana oo Burco ahaan degana markaas meeshana markii uu ahaa dhinta halka uu ugu soo booqan jiray uu ka warhaya xaaladda sida tahay. waxaan u direynaa Mandhaye waxa weeyaan waa isbitaalkii dadka waalida dadka waaliduna waxa weeyaan dadka ugu jilicsan ee aan cid u hadasha aan hayn ee aan garanaynin inuu xanuunsanayo. markaas waxaan leenahay dadaalkii markii hore loo hayay ama bulshadu haysay ama dowladdu haysay hal soo hal badiyo. waxaan kaloo aan leeyahay waxa laga kafaalo qaato si ay dawladdu uga korogeen. ugu dambeyntii isbitaalkani Mandhaye ayaa u baahan caawimo iyo sidoo kale taakuleen dhinaca dhaqaale iyo dhinaca daawada. waa Shaakir Cabdi Axmed, SBS TV, magaalada Burco.